Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran channelkeena YouTube ee Garaadso isku soo noqod wanaagsan weli waxaynu ku guda jirnaa barashada video editing software-ka lagu magacaabo After Effects maanta waxaan marinaa casharkeeni 12aad waxaana ku baran doonaa qaabka ay u shaqeeyaan TV-yada sida loo sameeyo qoraalada nuuxnuuxsada ee TV-ga hortiisa marmara maanta waxaan tusaale ka soo qaadan doonaa sida uu u shaqeeyo TV-ga qaranka ama SNTV ku soo dhawow cashar aynu ku horreynaa si aad muuqaalka hordhiciisa ku aragtay marka koowaad waxaan samaysan doonaa composition meeshaan waxa inoo ahaataa 19 halkan waa inoo ahaato 18 sidii caadiga inoo ahayd frame rate waxaan ka dhigan doonaa 30 halkan waxaad ka dhiganaynaa maanta waan badin doonaa waxaan ka dhigan doonaa ilaa 15 second oo kale midabkiisu waa inuu iska madow ahaado composition 1 ayaan u bixinay mid kalena waan samaysan doonaa oo lagu magacaabo composition waxaan u isticmaali doonaa inaan ka dhigano qaybtii yareed ee wararka ay kasoo baxayeen iyo qoraalada hadda waxaan samaysan doonaa composition labaad waxaan u bixin doonaa qoraalkii yaraa ama qoraalkii hoose kasoo baxayay waxaan ka dhigaynaa meeshaan 19 marka noo tahay calaamadda slog waa inaad ka qaado haddii ay ku saaran tahay waxma isba bedeli doonaan marka 19 halkaas ku tahay waa in halkaana 100 aad ka dhigatid frame rate-ka inuu yahay 30kiisii halkaana 15 second ahaato kalka ay isticmaali doono waa blue maadaama calanka Soomaaliya iyo TV-guba ay isticmaalaan bluegaas kale ay isticmaalaan marka halkaas oo kale ka dhigo dad ujeeda waxa ku soo bixi doona xariiqmo dheer oo wadata kalarkii bluega ahaa waxaan ku daraynaa marka qoraal inaan la soo baxno oo T aan doorano kadib marka qoraalka waa inaad diyaarisid wararka Word ayuu igu diyaarsan yahay waa kan marka wararkan ayaan rabaa inaan meel ku diyaarsaday oo aan soo koobiyay madaxweynaha Soomaaliya uu ambaxay safar dibadda ah marka intaas markaan kusoo koobay waxaa leeyahay control V asagoo dheer ayuu intaan iga soo bixi doonaa markaas kadib waxaan tagi doonaa selection tool waan soo qaadi doonaa ilaa iyo halkan aan keeno kale wararkaas si aad u jeedid xogaana fartu waa ay weyn tahay waxaan doonayaa inaan farta yara gaabiyo oo aad ay ugu weyn tahay marka fartoo kale ayaan waxa ku samayn doonaa hal mar aan click siiyo kadibna aan farta dhinacyada u gaabiyo xogaa aan size-ka yareeyo farta waa yaryareeyay si aad u jeedid marka selection tool ayaan tagi doonaa mar kale waan dooranayaa ilaa halkaan oo kale aan keeno sidaad hordhacba ku arkaysay meeshaan waxaan ii saarnaa waqti waxaan doortay ama waqtiga waa in ka cabir dabcan waqti dhaqaaqayo kala ma samayn doono halkaas oo kale ayaad geynaysaa intaas oo kale markuu soo baxo kalarka waxa yar inaad ka bedeshid meelahan oo kale kalar aad ka dhigtid weeyaan okay inta marka aad samaysid waxaan ku qoran doonaa waqti maadaama TV-gu uu isticmaalo mar walba aragto inuu waqti socdo waxaan ka dhigan doonaa waqtigana la noqoto 19 laba dhibcood 20 kadib waxaan samayn doonaa selection tool ayaan dooranayaa waan soo jiidayaa si aan meeshaan iigu soo baxdo halkaan ayay kasoo muuqan doontaa double click ayaan siinayaa markii geesaha dhan highlight fuulo waxaan samaynayaa xogaa waan ka weyneynayaa iyada oo geesaha ayaan u badin doonaa waxaan dooran doonaa haddana selection tool waqtigii ama wixii oo dhan halkaan ha iga soo wada baxaan marka si aad u jeedid hadda waxaan dhamaystay ama aan dhameeyey qoraalkan iyo textigan kulli ayaan dhamaystay waxaan samayn doonaa marka wax yar aan geesaha usoo jiido aan wax yar geesaha ka soo aruuriyo rectangle ayaan doortay marka koowaad marka waa la ekeysiin doonaa rectangle-kan si geesaha ay uga bixin markaas waa ka okay halkan waxa iigu qoran waqti meeshaan waxa iigu qoran madaxweynihii Soomaaliya marka waxaan rabaa inaan socodsiiyo qoraalkan waxaan tagi doonaa isla dooran doonaa meesha ay ku qoran tahay madaxweynaha u soo horeeya ee qoraalkan ah waxaan ku samayn doonaa ama dooranaya xarafka P waxaan siin doonaa marka position ama waa inaan horta marka koowaad halkan ii taagnaato calaamadda bilow ii maraayo muuqaalku waxaan taaban doonaa position waxaana geynayaa meesha ugu dambaysa marka uu ku dhammaanayo halkaasoo kale markii aan maraayo waxaan samayn doonaa dhammaan qoraalkan waa qaban doonaa waan gudbinaa marka ilaa iyo halkaasoo kale waa hoos anoo u dhigayo kale halkaasaan geynayaa waan wadayaa ilaa uu meelahan oo kale ha maro dabcan aduu meelahaas oo kale aan dib yar usoo celiyo wakaa inuu barnaamijku dhamaadaan rabo marka qoraalka halkaas maraayo bal wax yar aan dib u celiyo preview intaan taga aan daaro si aad u jeedid wuu socdaa markaan madaxweynihii Soomaaliya oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ambabaxay safar dalka dibadiisa ah waxyaabahaas ayay ku soo qoraan halkaana waxa lagu soo qoraa waqtigii la marayay markaas waqtigu xilligu doona ayuu noqon karaa
inta aan markuu marayo waxaan samaysan doonaa marka new solid ama background cusub midkaan aad ujeeda bluega waxaa wata compositionka ayaa wata hoosaan kala daa iraado wuu ka tegi doonaa marka waxaan samayn doonaa right click ayaan leeyahay kadib waxaan tegi doonaa new waxaan dooran doonaa solid background markii aad doorto waxaan ka dhigan doonaa kalarkan bluega ah saad ujeeda solid background wixii dhan wuu qariyey waxaan samayn doonaa waa soo jiidayaa meeshaan ugu hooseysa ayaan geenayaa hadda muuqaalkan wuxuu wataa solid background oo backgroundkiisa iyo compositionka waa isku mid marka hadda waxaan ka dhigi doonaa inaan samaysto qaab cusub hadda marka labaad waxaan soo gashan doonaa maadaama composition 1 aysan waxba ku jirin waxaan soo gelin doonaa horta loogadii tv-ga iyo waxaan soo gelin doonaa video yar loogadii waa itan muuqaal yar oo isbitaal digfeerana waan diyaarsan yahay asagana waan soo gelin doonaa muuqaalka waa kan soo gashaday halkaan oo kale labadoodaba waa ii halaad gareysan yihiin waa soo geliyey waxa hadda koreeya si aad ujeedid bal halkaan oo kale loogada ayaa koreysa marka loogadii meelahan oo kale ayaan iska dhigayaa dabcan labadooda waa halaad gareysan yihiin aan ka qaado kanna aan muuqaalkan wax yar aan toosiyo kan ayaan soo qaadi doonaa loogada ah aan doorto imageka loogadii halkaan oo kale aan keeno marka halkaas oo kale aan geeyo waxaan soo gelin doonaa marka qoraalkii soconaya haddeer waxa igu qoran qoraal meeshaan ii yaala waa compositionka hadda aan diyaarinayay isagana waan soo gelin doonaa halkaan oo kale aan keeno marka aan soo qaado qoraalkii waa kan ii soconayay waa ii diyaarsan yahay meeshaan oo kale ayaan dhigan doonaa hadda waxaan soo qaadi doonaa imagekaas asagana aan ku aadiyo maadaama tv-ga uu loogadan isticmaalo inta badan marka haddii geesahana kasoo yaree qaab muuqaalka uu kugu qurxoonaado oo kale maadaama waxaan after effect aan ku samaynayno marka aan doorto geesahan aan geeyo falaaraha geesaha waad ka wadi kartaa marka hadda muuqaalkan ayaa ii soo baxay aan dib u celiyey waxa dhan codkiisana aan iska xiro videogan aan daara marka sidaad ujeedid baabuurkan iyo waxyaabahaas socdo dhan qoraalkan hoose asagana wuu socon doonaa loogada tv-ga isticmaalay qoraalkan asagana qaabkaas ayuu u socdaa sidaad arkaysid waa sambal ahaan saacadan ayadu isma bedelayso oo 19 iyo 21 ma tegayso marka qoraalkan asagu sidaas ayuu dhaqaaqi doonaa waxa weeyaan isku day iyaana lagaa doonaya inaan waxyaabahan isku daydid oo hadda sida halkaa u socdid haddii uu tv-gu isticmaalo laba qoraal is dul saaran isla midkan oo kale ayaad isticmaalaysaa mar labaad kan ayaad isticmaalaysaa oo kalar gooniya wata marka labadooda qoraal waa is dul saaraysaa hadda labadii muuqaal aan rabnayn halkaas ayaan ku dhammaynay loogadii iyo xilligii iyo waqtigii qoraalkii soconayay anagoo ka tusaale qaadayna qaabka ay u shaqeeyaan tv-yada inuu soo bandhigaan qoraalada muuqaalkeena halkaas ku egyahay isku day insha allah safeskana dhowr jeer oo casharada waan kusoo darnay qaabka waxa loo safe gareeyo haddii aad doonaysid qoraalkan inaad geysid Premiere Pro waxaad leedahay control safe oo caadiya safe as meel gooni aad dhiganaysaan qaab after effect ahaan ayaad u safe gareysanaysaa haddii aad doonaysid inaad ka dhigatid muuqaal caadi oo taleefanka lagu shuban karana waa inii sheegnay oo laba qaab oo laba cashar ayaan ka diyaarinay oo cashar walba dhammaadkiisa fiiri wuu ku jiraa halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharkeenii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu